daawada kusoo dhawo bilan media anigu waa Nasriin Maxamed waxaynu wareysi la yeelanaynaa Zainab Maxamed Xasan oo kamid ah cilmi baarayaasha Soomaaliyeed waxaynu ka wareysanaynaa arrimaha la xiriira cilmi baaris dhawaan ay sameeyeen oo ay ku soo bandhigeen Muqdisho. Zainab adigoo bilan kusoo dhawaanayo marka xigta waxaad sharaxaad kooban naga siisaa maxay ku saabsaneed daraasadii ama cilmi baaristii la sameeyay ee lagu soo bandhigay Muqdisho. bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantahay Nasriin iyo bilan media daraasadda waxay ku saabsan tahay haweenka Soomaaliyeed ka qaybgalka siyaasadda iyo caqabadaha hortaagan waxa loo sameeyay runtii waxay tahay in la ogaado qaabka ay dadku horta u arkaan dadku sidee u arkaan ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka teeda kale maxay yihiin caqabadaha hortaagan haweenka Soomaaliyeed iyo fursadaha ay haystaan sidee maxaa la yiraahdaa looga gudbi karaa daraasadda marka lagu laabto waxa jiro hoos u dhac guud oo ku saabsan isbedelka haweenka dhanka siyaasadda gaar ahaan tirada ama lambarka ee baarlamaanka ka soo galeen ee xilli dawladeedkan taas maxaa loo xaqlin karaa oo maxaa sababa ayaa la isleeyahay isbedelkaas marka dawladda hore la fiiriyo lambarka aad ayuu u badnaa haddana wuu yar yahay sideedaba ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka baarlamaanada kala duwanaa mar walba horta ma ahayn wax kor u socdo oo marna kor ay aadaysay marna waxa waaye way soo dhaceysay kor ay aadaysay way soo dhaceysay haddii aan soo qaadano hadda doorashooyinka ugu dambeeyay markii baarlamaankii ka horeeyay kii 2012 soo galay iyo kii ka horeeyayba hoos ay u dhaceen kii 2012 kor ay u soo kaceen oo waxay gaareen 14% kadib haddana 2016 haddana kor ay u sii kaceen oo waxay gaareen 24% oo labada aqal ah haddana hoos ay u dhaceen oo waxay noqdeen 20% marka runtii waxa waaye oo isbedbedeladaasna waxay ku xiran yihiin waxyaabo badan oo hadda waxa keenay dabcan waxa kamid ah waxyaabo badan oo iyadoo kootadii lagu heshiiyay 30% ahayd ay ku heshiiyeen madasha wada tashiga qaran in aysan la dhaqan gelinin oo ama ha noqoto dhanka dawlad goboleedyada ama ha noqoto qabaa'ilkii oo iyaga laftigooda kule saameyn ama ha noqoto adiga uun marka la isku dardaro political elite-ka taas bedelkeeda iyadoo inta ay xoogaa haweenka ay lambar fiican ama tiro fiican ka helin ayaa haddana waxay taariikhda Soomaaliya noqdeen gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaanka taas ma isleedihiin rajo fiican ay idin gelinaysaa oo dhinacna rajo ay ka nooleynaysaa in gudoomiyaha koowaad ee baarlamaanka ay haween noqoto waa wax aad iyo aad loogu farxay loona soo dhaweeyay waana wax runtii dan u ah haweenka kaliya ma aha laakiin Soomaaliya dhan sababtoo ah waxa way gabdhaha yar yar ee hadda ku haminayo mustaqbalka inay wax noqdaan waxay u noqonaysaa dhiirigelin weyn tan kale waxa waaye shuruucdii baarlamaanka muddo dheer soo jiitamay gaar ahaan kuwa la xiriiro haweenka iyo caruurta ama ha noqoto kuwa ma aragtay kufsiga iyo wixii la mid ah iyo xadgudubka ama ha noqoto maxaa la yiraahdaa kan caruurta ama ha noqoto waxa jiro shuruuc badan oo aanan marna baarlamaanka gudbin marka saansaantii shuruucdaas lagu meel marin lahaa ama dumarka kuwooda quseeyaba wax looga qaban lahaa ma sii muuqata waxaan isleeyahay kulleyba horta baarlamaanku waxa waaye ma ogtahay 275 xubnood haweenkuna waxa waaye 20% ay ka yihiin laakiin waxaan isleeyahay haddii si fiican loogana dhaadhiciyo lana engage gareeyo oo maaragtay lagu dadaalo in la marsiin karo sababtoo waxaan ma aha wax maaragtay haweenka kaliya qoseeyo aabbo walba ay qoseysaa wiil walba oo ay qoseysaa walaashiis caruurtooda oo gabdho iyo wiilalba ah marka runtii waa wax dan u ah bulshadooda ugu dambeyntii Zainab daraasaddu maxay ku talinaysaa daraasaddu talooyin badan oo aad muhiim u ah bixinaysaa horta oo talooyinkaas waxa kamid ah in shuruucda ku saabsan ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka ay kamid yihiin maxaa la yiraahdaa sharciga doorashooyinka kan axsaabta iyo dastuurkaba in lagu qoro kootada haweenka lana dhaqan geliyo in maxaa la yiraahdaa doorashada qof iyo cod ah marka la aadayana la qaato nidaamka oo close list loo yaqaan ama liiska xiran
haweenkuna ay maaragtay markaas ay leeyihiin fursad fiican haddii koontada la ansixiyo oo lagu daro in haddii la yidhaahdo kale halkii ninba inay gabar ku xigto markaas fursado fiican ay leeyihiin. waxaa kaloo iyadana ku jirto in haweenka laga dhiso dhanka dhaqaalaha, dhanka waxbarashada, in laga dhiso haweenka xildhibaanada ah laftigooda tayadooda, in iyagii ay dhismaha waxa loo yaqaan women's caucus ama guddiga baarlamaanka ee haweenka in la tayeeyo oo la xoojiyo. waa tahay waad mahadsan tahay waan ku mahad celinaynaa Zaynab Maxamed Xasan waxay ka mid ahayd cilmi baarayaasha Soomaaliyeed Bilan Media ayay u warramaysay anigoo Nasriin ayaa wareysigaas la yeeshay aad iyo aad u mahadsan tahay.